teendhada Afisiyoni ee ku dhex taala gudaha xeerada Xalane oo ay maanta ka dhacayso doorashada madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa haatan ka socda qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada. Wararka ayaa sheegay in haatan ay bilowdeen dhaqdhaqaaqyada iyo xaadiritaanka goobta doorashada oo si weyn amnigeeda loo ilaalinayo. Qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal iyo musharaxiinta xilka madaxweynaha ayaa goor hore sii tagay hoolka doorashada si ay isugu diyaariyaan doorashada dhacaysa. Sidoo kale xubnaha guddiga qabanqaabada doorashada ee labada gole ayaa ku sugan hoolka iyaga oo kala qayb qaadanaya howlaha socda ee doorashada madaxweynaha. Warbaahinta iyo marti sharafta kale ayaa sidoo kale loo ogolaaday goobta si ay goobjoog uga noqdaan doorashada oo ay ku loolami doonaan ilaa 35 musharax madaxweyne. Dhinaca kale waxaa xiran dhammaan wadooyinka caasimadda iyada oo hakad la geliyay dhaqdhaqaaqyada dadka gaadiidka iyo ganacsiga kadib bandow ay soo rogtay dowladda. Doorashada Soomaaliya oo maanta la dhammaystirayo ayaa qaadatay muddo ka badan 1 sano kadib khilaafaad soo kala dhex galay dowladda dhexe maamulada iyo mucaaradka.